guddiga annagu waxaan nahay labada tuule ee ugu hawl badan baan inta guddiga u magacawnay ka jirto mid abaaro horta dadka deegaankani ku nool degmada Saylac iyo Looqaya inta gobolka Saylac la leeyahayba waxay u baahan yihiin mar walba qofka bilaabka hadduu u baahan yahay laba litir maalintii iyadoo waxay u baahan tahay waa 3 laab waayo dhul xagaaga xafida ka dhacaya xoolaha hadday laba qab dhulka kale yihiin iyadoo waa maalin waa la daab marka wuxuu dhan waa riiguna dhibta uu leeyahay markuu cadalaad ku timaado waxa dhacaysa dib aada sida iminka ka dhacday laanta muruxda leh oona cilaaminay bisha 20keedii bishii Juun ee dhamaatay ilaa maantana dhibtu halkeedii bay taalo oo wax qabanay ma jiro waxa marka laga tago biyo dhaamista ay dawladdu hoos samaysay dhibtu inta way ka badan tahay algaal iyaduna waxay iska awoodi weeday kabid sidaal buu baahatay mar walba ay abaaray taw deegaankii baa ku yarayada alxamdulillah qayla dhaantan samaynay wali dawladdu intii roolka ay ku lahayd ma gelin ma qaadan insha Allah wala laga sugayaa waana sadde muddada dheer ee 10 cisho iyo waliba dheeraadka baahidina ay taagan tahay waxaan ka codsanaynaa dhammaan walaalaha ay khayrka ama dibadda joogo ma gudaha jooga ma dawladda ma hay'adaha inay gurmad degdeg biyo dhaamis loo sameeyo meesha banka gariyaad ee bartamihii biyo walba 4 geesoodna biyaha ugu dhow waxay jiraan 530 iyo wax ka badan oo kiiloomitir marka waxaad garan karaysaa fogaanta inta laga dhibto inta leeg tahay dhibtuna wali halkeeda taagantay ilaa imka dhibtuna waxay tahay ceelkii oo biyo laga waayay inuu dumay iyo in biyo la'aan ku dhacayna ma kala garan karno ilaa loo helay guddi farsamo oo sheegto biyaamisa inta marka soo dhaafo qayla dhaanta aan sameynay bisha Juun 20 ilaa maanta waxa ka soo jeeday khayr Allah siiye Abdirashiid Xasan Wataan oo ah musharaxa gudoomiye xigeenka xisbiga ucid ee Somaliland isagoo jooga Kambala wuxuu qayla dhaantii aan sameynay meel walba waa qofkii koobaad ee isagu jawaabta dareenkiisa halka uga soo diray in laba booyadood lagu dhaamin karo oo biyo ah lacagtana wuxuu soo diray $700 wuxuu noo soo mariyay xawaalada Amud Express gudiduna sida ay waxaan u ogeysiinaynaa lacagtaasi oo laba lowda bilaabina doon caaw haddii la yiraahdo waxaan uga mahad celinaynaa mudanaha musharaxa damiirkiisa isagoo halka jooga markuu qayla dhaanta qiimeeyay go'aanka uu qaatay khayr Allah siyaan leenahay waxaan doonaynaa walaalaha kale ee ama dalka iyo dibadda jooga waliba sheeganaya deegaanka inay ka soo jeegaan inay ku daydaan muwaadinka isagu xakumay degdegna ay uga soo jawaabaan baahidayada ee dalbanayna guddiga iyo biyo dhaamista waxaan rajaynaynaa khayr dhow inaad si aad naxariista ku soo eegtaan dadka baahida degmadeenu intaan kuma koobna laakiin waa inta maanta xaruntaynaysa ugu muhiimsan waxa ka jira abaar waxa ka jira shaqo la'aan waxa ka jira cunto la'aan nooc walba haysta dadka iyadoo ogeydeen inay soo haysay muddo 8 bilood abaar raagtay laakiin marka degmooyinka gobolka qaarkeed dhul baa abaarihii ilaahay ka soo jeeday dhul waa sida ceelgaal oo kale abaartii wali ilaahay raxmad sida ay uga maqan tahay gurmad bay u baahan tahay haddii ilaahay waxaan rajaynaynaa inaad qiimaysaan qayladantayada waana mahadsantiin salaamu calaykum gudoomiyaha deegaanka ayaa dhameeyay xaaladda meesha ka taagnayd wuxuuna ahaa ninkii halkaa ka orday isaga iyo xogeeyuhu gurmadka u tagay maalintii u tagay halkaa ee biyo dhaamiska u galay ilaa maalintii hadda qayladii lagu jiray hadday dibad tahay hadday guda tahay iyo hadday dawlad tahay dibta meesha taalaana waxa weeyaan ceelka laanta marada iyadoo oo roob yari dhawaan ka daay deegaanka agaarkiisa dadkiina halkaas u guureen oo xoolihii marka meesha dadka reer guuraaga waxay tagaan halka uu roobku ku dambeeyo roobka halkii ku dambeeyay ee degayba ceelkina biyo la'aan ku dhacday dhibaatada ugu weyn ee ugu xumay taasay ahayd gurmad waxay dawladda hoose taraysay way tartay way se ka badatay ilaa imikana way taagan tahay ceelkina sida uu biyo laayahay waxaan mahad weyn u naqaynaa ninka walaalkaya ee u yimid xog waranka xog baadhista u yimid wax qabadkeeda dhulka inuu ka yimaado deegaanka ee meel fog uga yimid aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa gurmadka dawladda hoose fadhiisana aad baan ugu mahadnaqaynaa muddo ayay wax u tartahay waxa kale oo mahad weyn halka ugu celinayaa
ninka musharaxa Cabdirashiid Xasan Mataan ee gudoomiye ku-xigeenka ucud ah ninka madaxweyne ku-xigeenka ucud ah oo isagoo Kambaale jooga markii uu arkay baahida iyo website-yada uu arkay damiirkiisu siiyay inuu dadka wax u taro dhibaataysan halkaan lacag uga soo diray lacagta uu soo sheegay gudoomiye $700 oo maanta iyo bari lagu cabi karo ninkaana mahad baan ugu celinaynaa waa nin damiirkiisu siiyay waa nin wax garada aad iyo aad baan leeyahay waxaas wax ku yaalaan leenahay isagana dadka kalena waxaan leenahay inta ku dayda oo walaalihii dhibaataysan wax u taraan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh arintani waa arin dhacday waa arin maaragtay gobolkiina haysata dadka maaragtay gobolka soo jeedana gurmad iyo degdeg waa looga baahan yahay ceelkaasi maanta dowladana waan u daranay maxaan ku idhahay tajaarka Jabuuti xitaa waan la hadalnay gurmadkii Jabuuti maaragtay assessmentka kuwii ragii ku sameynayay way yimaadeen maxaan ku idhahay inuu ceelkaasi waa biyo la'aan marka inay biyaha laga wada guuriyay inuu maaragtay biyo yareeyo oo hoos loo qodi labada midka ay noqon doonto Ilaahay baa garanaya haba saatay iyagu markiiba way soo jawaabeen shalayna way tageen shalayna waa ka soo noqdeen hargeysana waa sugaynaa way soo socdaan iyaguna maaragtay hadday dhaamistii tahay iyo hadday maaragtay riigga tahay waliba dhaamista iminka iyagu ku mashquulsan yihiin ya riiggii wasaaraddii baa qaadatay wasaaraddan laga sugayaa taasi waa halkeeda maxaan ku idhahay ceelkaasi halkii naqu ku dambeeyay buu ahaa sida horeba loo soo sheegay xoolihii ay ku isugu tageen xoolihii maxaan ku xoolihii iyagoo maaragtay biyihii iyo cawskii yar haya ayuu ceelka xumaaday xoolo badan baan anagu maaragtay maalinta aan iskugu tagnay maayarka xogayaa iyo anagu baan iskugu tagnay habeennimada awr iyo dameerba way dhisanaayeen mugta iyo saxba way dhisanaayeen haddii xaggan ceelgaal usoo tallaabinaan meel ay daaq ka helayeen ma abaarta baa ceelgaal haysata marka xoolihii meel la meena joogsadaan bay weelaayeen sidaa darteed horta waxaan leenahay dadkii gobolkan u dhashay gurmadkiisa waa sugaynaa ya dadkuna waa dadkiinii xooluhu waa xoolihiinii waana maalintii la isku dhigtay baan leenahay taayada Cabdirashiid Xasan Mataan waa nin siyaasi ah waa nin isagoo Kambaale jooga ayuu website-ka ka arkay maaragtay gurmadkii aan weydiisanay qayla dhaantii aan weydiisanaynay dadka gobol kale aan weydiinaynay u sheegaynay ayuu arkay isla markiiba inuu telefoon nagula hadlo ya inuu telefoonka iga raadacay nala hadlo markiiba way gaadhay inuu markiiba soo maaragtay anigu labada booyadoo horeysa aniga soo gudbinay inuu idhaaho isagoo tii u dambeysay weeyaan aan odhanin waliba waa tii u horeysay aan soo gudbinay buu yiri marka isagana mahadnaq weyn oo walaaltinimo ya ayaan maaragtay isaga noo haynaa maadaama musharaxii uu yahay maaragtay xisbiga maaragtay ucid uu yahayna musharaxii madaxweyne ku-xigeen maxaan ku idhaa abaalkiisa kulley wax cidlo ku dhacaya maahan wax loo haynayo weyn